ilmaha lagu dhalayo wadamada shisheeyaha kaasata kuwa reer galbeedka kale lagu dhalayo in la dhalo ma mudan yihiin haddiise la dhalo maxaa laga faa'iidaya aniga marka doodaydu marka maanta waxay tahay badankeen nambarkeenna ugu badan waa ku khasaarnay inaan qurbaha ku dhalnay sidee waxaan ugu khasaarnay waxaan u dhalaynaa sidii mentalitigii aan waagi Soomaaliya aan joognay aan u dhali jirnay mentalitikaas noocay buu ahaa mentalitigaas wuxuu ahaa ninka Soomaaliga ahi gabar buu guursadaa wuxuu gabadha u guursadaa inay ilmo dhasho hawl kale looma dirsan jirin gabadhaas inta jirkeedu dhacaan ka imaanay wax dhalayso way dhali jirtay qofka Soomaaliga markuu ku weydiiyo gabadhi wali caadada ma ku dhacdaaba ku leeyahay moogto ma dhalaysaa ma dhashaa gabadhi wali qofkaanba wuxuu ku qiimaysan yahay inuu dhalayo macno kale uu leeyahay ma jirto gabadhaanba valuegeeda waa inay wax dhalaysaa hadday dhalmadayso waa laga guurayaa wax shuqlo lagu male mid dhalaysaa la raadsanaya xuquuq la seexasho ma leh xuquuq mataqaana caafimaadkeeda ma leh xuquuq in laga warqabo ma leh xuquuq in la dhegaysto ma leh xuquuq in lala tashada ma leh habartii laga guuray waa qofka waxaa laga yaabaa gabadhaas inay 30 sano jirto waxaa laga yaabaa 25 sano inay jirto qasab maaha dhalmadu qofku inuu da ku dhalo maaha markay intay dhalmada ku dayso oo adigu la joogaya waa dhaqankeeni hore waa halkan ka hor marka iyada sidee baan loo mudnayn in lagu dhalo waxaan loo mudnayn dhaqankii baa la soo koobi gareeyay copy and paste asagii baa inta la soo qaaday qofka Soomaaliya ku nool mentalitigiisa ninka Soomaaliya ku nool ama gabadha Soomaaliya ku nool oo Mareykanka timid maba aysan iska baandhaynin meesha ay wax ku dhalayso waagii hore marka dhalmada laga hadlo especially dadka Soomaalida ah qof Soomaali haduu ku yiraahdo war waxa dhalmadan badan dib badan bay leedahay ma iska deysid oo ma iska yareysid waxa soo boodi jiray bul soo dhihi jiray waxay tahay la taqtulu awlaadakum min imlaaq hadilinina ilmihiina gaajo darteed America iyo Mareykan iyo Yurub imlaaq kama jiro imlaaq gaajo kama jirto waxaa ka jira gaalnimo waxaa ka jira maxaan ku iraahdaa diin la'aan waxaa ka jirta cunugaagii iyo fakar kale iyo mataqaanaa ii sheeg balaayo kale maxaan ku atheist noqonaya waxaa ka jira cunugaagii iyo mentally aan xanuunsanaya waxaa ka jira cunugaagii oo mataqaanaa cidda uu la hadlay aad garanaynin waxaa ka jira qof in la waardiyeeyo u baahan waxaasoo dhan baahi dalkeena ka jirta maaha marka qofka inta Mareykan yimaada ama Yurub taga ama Ingiriiska taga asagoon u diyaarsanayn oo financial ilmaha waxay u baahan dhaqaale u baahan yihiin hadda estimate la sameynayay waxa la qofka Minnesota raba inuu ku noolaado wuxuu u baahan yahay in uu sanadkii sameeyo hadduu cunug 4 ilmood u dhalo rabo inuu koriyo ugu yaraan waa inuu $120,000 uu sameeyaa dad baa laga yaabaa inay dhahaan imlaaqi baa laga sheekeynayo lagama sheekeynayo gaajo lagama hadlayo kabaa laga hadlaya cunugu inuu kaba xirto in computer loo galaa laga hadlayaa in waxaa laga hadlayaa mataqaanaa meel nadiifa inuu seexdo waxaa laga hadlayaa cunugu inuu mataqaanaa ii sheeg waxyaabaha basic ah ilmuhu u baahan yihiin inuu heli karaa laga yaabaa marka cunuga Mareykan ku dhashay oo aan computer heli karin oo aan kaba gadan karin oo aan sariir fiican ku seexan karin oo mataqaanaa wixii asaga uu lahaa dibadda loo diro yaa mentally waalanaya marka qofka haysta 7 ama 8 ama 9 haysta qoysasba inta haysta average keenaba waayaba average keen qof Soomaali oo 5 Mareykan ku dhalay oo 5 haysta waaba yar yahayba upper level ana kulligeen tartanka inaan lacag sameeyno kama shaqeyno oo mataqaana financial create gareyno waxaan ka fakarnaa inaan ilmo badan dhalno baan ka fakarnaa marka arintaas marka waxay u baahan tahay in dadka laga wacyigeliyo oo la yiraahdo war waxaadan korin karin iyo waxaada ku waalanaysid iyo waxaadan waxba u qaban karin dadka banaanka isku keenin